Waxaan aaday inaan kormeero jikada hudheelka. Halkaas waxaan ku arkay in baradho kasta uu ku dhegan yahay sticker u eg qaab wadne. Isla markiiba maskaxdaydu waxay dib ugu noqotay 20 sano ka hor waqtigaas, aniga ayaa baradho kasta ku dhejin jiray sticker. Taasi waxay ka dhigtay in baradhadii aabbahay si ka dhaqso badan kuwa kale loo iibiyo. Laakiin maan filayn inay arrintaasi kiciso masayrka walaashay. Maalin maalmaha ka mid ah, walaashay waxay ii sheegtay been ah inay biyo u geynayso aabbahay oo ku jiray beer galley ah. Laakiin isla markii aan gudaha galay, nin aan garanayn ayaa i afduubtay. Fiidkii aabbahay markuu shaqadii ka soo noqday, wuxuu walaashay weydiiyey meesha aan joogo. Iyaduna waxay ku been sheegtay inay waxba ka ogeyn. Markaas aabbahay wuxuu baxay isagoo sita toosh, wuxuuna habeenkii oo dhan i raadinayay. Xitaa wuu suuxay isagoo magaca ii yeeraya. Wax yar kadib 10 sano ayaa dhaafay. Walaashay waxaa la geeyey jaamacad. Laakiin dakhliga qoyska ma dabooli karin lacagta waxbarashada. Aabbahay wuxuu bilaabay inuu dhiig iibiyo si uu lacag u helo. Lacagtii oo dhan wuxuu siiyey walaashay. Xitaa wuxuu u soo iibiyey rooti ay cunto. Laakiin walaashay waxay rootigii ka tuurtay gacantiisa, waxayna ka codsatay aabbahay $10,000 oo kale oo ay ku noolaato. Aabbahay si degdeg ah ayuu u aqbalay. Dhanka kale, anigu waxaan isku diyaarinayay inaan dibadda waxbarasho ugu baxo. Nasiib ayaan lahaa, waxaana i korsaday qoys taajir ah. Markii ay doonayeen inay i siiyaan $500,000 oo kharash nololeed ah, waan diiday. Waxaan doonayay inaan lacagtaas ugu deeqo hay'ad samafal ah, anigoo rajaynaya nasiib wanaagsan iyo inaan helo aabbahay. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbahay wuxuu baradho u geeyey maqaayad. Halkaas ayuu ka maqlay codka walaashay oo ku jirta qol gaar ah. Markii ay walaashay aragtay aabbahay, isla markiiba way istaagtay iyadoo yaaban. Laakiin ilbiriqsigii xigay waxay qaadatay koob khamri ah oo ku tuurtay aabbahay. Aabbahay wuu naxay. Ka hor intuusan falcelin, ninkii agteeda joogay ayaa feer ku dhuftay. Xitaa waxay u yeereen maamulaha hudheelka, waxayna aabbahay ka saareen bannaanka. Aabbahay aad buu u murugooday. Isla waqtigaas aniga si kama ah ayaa canqowga iiga qaloocday. Aabbahay ayaa ii soo gurmaday oo i taageeray. Markii aan madaxa kor u qaaday, waxaan arkay taawiska qoortiisa ku xirnaa. Wuxuu ahaa kii hooyaday uga tagtay ka hor dhimashadeeda. Laakiin 20 sano ayaa dhaafay, mana aanan is aqoonsan karin. Waxaan bilaabay inaan magaciisa weydiiyo. Markii aan maqlay inuu leeyahay isla magaca aabbahay, aad baan u farxay. Laakiin wuxuu yidhi wuxuu leeyahay arrin degdeg ah, markaas si dhaqso ah ayuu ku baxay. Isla markiiba waxaan ka codsaday kaaliyahayga inuu xaqiijiyo aqoonsigiisa. Markii la ii xaqiijiyey inuu yahay aabbahay, aad ayaan u farxay. Si kadis ah, arooska walaashay wuxuu ahaa 7 maalmood kadib. Waxaan qorsheeyey inaan maalintaas qoyskayga dib ugu aqoonsado. Laakiin maan filayn in maalinta arooska walaashay ay nin shisheeye ugu yeeri doonto aabe.